robot humanoidka ah ayaa xumaaday oo ku dhuftay shaqaalaha Shiinaha ay marunba, iyadoo mashiinadu ay sii wadaan inay galaan nolol maalmeedkeena, laga bilaabo guryaha ilaa sagxadaha warshad. Waxay mararka qaarkood qaadataa hal dhacdo oo lama filaan ah si kor loogu qaado walaacyo halis ah. Muuqaal dhawaan laga soo duubay Shiinaha ayaa sidaas sameeyay. Muuqaalkan, robot baniaadam ah oo loogu talagalay inuu ka shaqeeyo deegaanka baniaadamka ayaa la sheegay inuu ciladoobay intii lagu guda jiray tijaabada oo uu dhaawacay shaqaale. Fiidiyowga ayaa hadda noqday mid virus ah, taasoo dhalisay walaac baahsan oo ku saabsan badbaadada aaladaha robotka. Isla mar ahaantaana, waxa ay sidoo kale noqotay mawduuc aad u kulul oo ku saabsan warbaahinta bulshada, iyada oo dadku ay ka falcelinayaan walaac iyo kaftan isku dhafan. Talaabada degdega ah ee robot ayaa lagu qabtay kamarada fiidiyowga fayraska oo ay wadaagaan isticmaalaha Osin Defender, ayaa muujinaya waxa uu eg Unitre hal robot humanoid oo lagu tijaabiyey xarun ku taal Shiinaha. Isla markiiba, robotkii ayaa gacanta lulay oo ku dhuftay shaqaale ka agdhowaa, halka qof kale uu si dirqi ah u maareeyo inuu ka baxo jidka. Dhacdadan ayaa lala xiriirinayaa suurtagalnimada khaladaadka codaynta, inkasta oo aysan jirin xaqiijin rasmi ah oo weli ku saabsan halka saxda ah ee imtixaanku ka dhacay ama waxa ku lug lahaa. Robotka HAL oo ay dhistay shirkadda Shiinaha ee Unitre Robotics waa qayb ka mid ah jiilka cusub ee mashiinada loogu talagalay inay si habsami leh ugu shaqeeyaan dadka. Waxaa lagu qiimeeyey ku dhowaad 6 eber yuan, waxaa loo dalacsiiyey sidii robot biniaadam oo dhan, ujeedo guudna leh. Laakiin kadib ciladan dhawaanahan dhacday, dad badan ayaa hadda su'aal ka keenaya in robots kuwan oo kale ah ay runtii badbaado u yihiin in lagu isticmaalo goobaha caamka ah ama goobaha shaqada. Halkan ka daawo muuqaalka. Dhacdada labaad ayaa kor u qaadaysa digniino badan. Tani maaha markii ugu horeysay ee robot Unitre uu sameeyo inwaano. Horaantii sanadkan, robot kale oo shirkada ka tirsan ayaa argagax ku dhaliyey intii lagu guda jiray wax u muuqday xaflad dadweyne oo ka dhacday Shiinaha. Muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya robotka oo taagan gadaashiisa xanibaad badbaado ka hor inta uusan si lama filaan ah ugu dhaqaaqin dad badan oo daawadayaal ah. Waxaa wakhtigan kasii murugo badan ka dhigay robotka oo hakad kooban sameeyey iyo dhaygagon ka hor inta uusan horay u sii socon, wax daawadayaasha ay ku tilmaameen biniaadam aad u fool xun. Shaqaalaha ammaanka ayaa si degdeg ah u soo galay oo ku guulaystay inay xakameeyaan xaaladda. Kadib, Unitre Robotics waxay u sharaxday dhacdada inay sabab u tahay barnaamijka habaynta ama khaladka dareemayaasha. Jawaabaha dadweynaha ee kaftan, jabs iyo jitters la yaab ma leh, internetku si dhaqso ah ayuu uga falceliyey dhacdada. Laga soo bilaabo faallooyinka qosolka ah ilaa doodaha aadka u culus ee ku saabsan mustaqbalka shaqada, jawaabaha si degdeg ah ayaa loo shubay. Internetku wuxuu lahaa maalin bannaanka ah dhacdada, oo leh falcelinno u dhexeeya kaftan iyo su'aalo kicinaya. Mid ka mid ah isticmaale ayaa ku kaftamay, kani waa aniga nolosha dhabta ah marka aan ka cadhooday asxaabtayda ama madaxayga, laakiin waxaan ku samayn karaa oo kaliya maskaxdayda. Mid kale ayaa ku daray, weerarkaas wuxuu ahaa shakhsi. Isticmaalayaasha qaar ayaa qaaday habka tarjumaya, iyaga oo weydiinaya, waxaan ka fekerayay, haddii robots ay nagu beddeli lahaayeen, marka maxay dadku samayn karaan si ay nolol u helaan mustaqbalka. Qaar kale waxay siiyeen xaaladda isbeddel cajiib ah. Faallooyin, robot wuxuu dib u dagaalamaa kadib markii uu la kulmay cagajuglaynta iyo xadgudubka goobta shaqada. Dhanka kale, qaar ayaa u aaday qaadashada sci-fi ku dhiirigelin badan sida, waxay heshay miyir iyo naxdin. Dabcan, kaftanka ayaa sii waday inuu ku shubo faallooyin ay ka mid yihiin, waxaan had iyo jeer ku mahadnaqayaa Tadkad, daalkii addoonsiga, iyo hal eber robots hal gorilla. Mid ka mid ah isticmaalayaasha ayaa xitaa ku qayliyey, tani waa sababta aan ugu mahadcelinayo Siri, Google iyo Tadkad. Faalladiisu waxay ku dartay koorsada sii kordhaysa ee walaaca ee ku saabsan doorka robotka ee nolol maalmeedka. Iyadoo horumarka robotku uu sii wado inuu horay u socdo, dhacdooyinkan ugu dambeeyey waxay noqdeen wakhtiyo taxadar leh oo loogu talagalay horumarinta, maamulayaasha iyo dadweynaha si isku mid ah. Su'aalaha ku saabsan badbaadada, kormeerka iyo mas'uuliyadda hadda waxaa la isweydiiyaa si ka sii dheer oo degdeg ah, si ka badan sidii hore.